mid ka mid ah calaamadaha ugu weyn ee ka horeeya qiyaamaha waa soo bixidda qoom la yidhaahdo Yaajuuj iyo Maajuuj. dadkan ayaa iyaguna nugla nool adduunkan korkiisa, meesha ay ku jiraanna waxaa lagu xindaabay oo lagu wareejiyey derbi dheer oo ka samaysan bir iyo nuxaas. maalin kastana waxay waaberiga hore ku jarmaadaan si ay derbigaasi u jebiyaan uguna soo baxaan, laakiin marka uu gobol ka dhaco ayay iska noqdaan iyagoo aan gaarin yoolkoodii. ma jirto cid weli gaartay gidaarkan diyaaradaha horumarsan ee aadamuhu sameeyey, iyo sidoo kale satellaadyada dul dawaafaya adduunkan awood uma yeelan inay muuqaalo ama sawiro ka qaadaan meesha ay dadkani ku jiraan. laakiin waxaa jirta dhacdo caan ah oo ay sawiraan taariikhyahanadii islaamka, badanaana ay ka socotaan taariikhyahanada Yurub, oo ah mid ka mid ah howlwadeennadii khaliifka muslimiinta oo la oran jiray Haaruun al-Waafiq, oo safar qaatay ku dhowaad 2 sano ku gaaray derbigan kana faalooday qaabka uu ahaa iyo xaaladda uu xilligaasi ku sugnaa. haddaba sidoo buu ku gaaray ninkan? maxay tahay dhacdada keentay in ninkan safarkan dheer galo? xaggeesa ku sheegay derbigan inuu ku yaalo? su-aalahan iyo kuwo kale ayaynu kula fuguri doonaa muuqaalkeena maanta. magacaygu waa Diine Xuseen Shacab, halkani waa kanalka iftiinka. kusoo dhawaado daawadayaal muuqaalkeena maanta. intaan ugu gudagelin sheekada ninka gaaray derbiga Yaajuuj iyo Maajuuj ay ku xiran yihiin iyo dhacdooyinka la yaabka leh ee uu ku soo arkay, ayaynu isla eegno marka hore waxa ay yihiin dadkani, qaabka ay yihiin jirkooda, iyo waxa keenay in derbigan lagu xindaabo deegaankooda. Yaajuuj iyo Maajuuj waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin dad indhayar ah, oo waxay dadka daraasay ku sheegaan inay isar yihiin dadkan indhayarta ee dega Aasiya iyo sidoo kale Turkida. waxaa lagu tuhmaa in deegaanka ay ku jiraan dadkani isla deegaanka ku yaala agagaarka dalalkan. sidaynu ku arki doono dhacdada uu muuqaalkeena maanta ku socdo, sifooyinka dadkan ayaa lagu tilmaamaa inay yihiin dad san gaagaaban, midabka timahoodana uu yahay hurdi iyo madow isku jira, wejigooda ballaaran yahay. dhirirkooda ayaa lagu sheegaa inay yihiin dad gaagaaban, waa dad aad u tarmaa. waxaa la sheegaa in midkood inta uu dhiman uu ka tago duniyadiisa oo gaadhay ku dhowaad 1 qof. waa dad qaribaad iyo foodo u samaysan, waxay ishooda qabato cagta sii mariya. inkastoo ay gaagaaban yihiin, haddana waa dad xoog waaweyn, haddana aysan dadka iska dhicin karin. sidoo kale alle subxaanahu watacaala ayaa ku waramay suuratul kahfi dulqarnayn oo ka mid ah boqoradii 4 ee xukumay adduunkan oo dhan, ayaa isagoo socdaal dunida uu ku maray ku jira ayaa waxa uu la kulmay qoom ama dad aan hadalkooda la fahmin oo af adag, kuwaasi oo kaga dacwooday Yaajuuj iyo Maajuuj oo ay ku tilmaameen inay yihiin dad dhulka fasaahadinaya. waxayna ka codsadeen inuu u dhisay xindaab uu ku oodo qoomkan dhibka badan si ay ugu nabadgalaan. dulqarnayn ayaa aqbalay codsigooda, wuxuuna dhisay derbi weyn oo ka samaysan bir iyo nuxaas oo uu ku daboolay halkii ay ka soo bixi jireen Yaajuuj iyo Maajuuj. wuxuuna u sheegay in xindaabkan uu yahay naxariista alle uu kaga hor joogo fasahaadkooda qoomkan. wuxuuna ugu sii daray in maalin maalmaha ka mid ah uu ilaahay xindaabkan ama derbigan dhulka la simi doono, Yaajuuj iyo Maajuujna ay soo bixi doonaan. Yaajuuj iyo Maajuuj maalin kasta oo qoraxda soo baxdo waxay qodaan gidaarkan xindaabka ku ah meesha ay ku jiraan si ay dunida inteeda kale ugu baahaan, laakiin kuma guulaystaan yoolkooda. oo sida uu sheegay Nebi Huud naxariis nabadgeliyo korkiisa ha ahaatee, waxay qodaan gidaarkan maalin kasta ilaa laga soo gaaro qorax dhaca, iyaguna ay arkaan iftiinka qoraxda. markaasi ayaa lagu dhahaa noqda, beri ayaad dhammaystiri doontaan inta idin hadhay. maalintii xigta marka ay subaxii soo noqdaan ayay ugu imaadaan derbigii oo sidii hore ka adag, markaasi ayay dib u soo bilaabeen jibintiisa. waxaana maalin kasta halkan ku jiraan. waxaa dhacaysa in maalin uu dhaho kii amriye noqda, beri ayaad dhammaystiraysaan, wuxuuna markan raacinayaa insha allah. waxay soo noqonayaan aroortii kale iyagoo gidaarkii meeshii ay shalay ugu tageen jooga. way dhammaystirayaan, wayna soo baxayaan, waxayna kasoo degayaan jiha saraysa. kooxda ugu horeysa ayaa soo maraysa harada la yidhaahdo Dabriya ama Tabriis. waxay cabayeen dhammaan biyaha ku jira haradaasi. kadibna kooxda ugu dambeysa ayaa marka ay marayaan isla haradan waxay dhahayaan xilli ka mid ah xillida haradan waxaa ku jira biyo. taasi oo ku tusinaysa siday u tiro badan yihiin, sidoo kalena ay u badan yihiin, oo waxay arkaanba kooxba kooxda ka dambeysa waxba u sii reebeynin. waxay cagta sii marinayaan
wax kasta oo ishooda qabato, dad iyo dunyaba. Dadku waxay galayaan dhufaysyo si ay naftooda ula baxsadaan. Markay wax kasta oo ay arkaan dilaan ama cunaan ayaa marka dambe cirka u tuurayaan leebab, kadibna leebabkii ay tuureen ayaa u soo noqonaya iyagoo dhiig leh. Markaasay dhahayaan, waan ka adkaanay dadkii dhulka joogay iyo ciddii cirka joogtayba. Xilligaasi waxaa dhulka jooga Nabiyullaahi Ciise calayhi salaam, kadibna isaga iyo inta la socota ayaa fuulaya buur. Waxay barayaan Ilaahay inuu ka qabto qoomkan aan waxba reebeynin. Alle subxaanahu watacaala ayaa u soo diraya mid ka mid ah ciidankiisa, kuwa ugu yaryar waxaa loo soo dirayaa cayaan yaryar oo sankiiyo dhagaha ka gala oo dhammaantoodna wada dili doono. Xilligii uu khilaafada muslimiinta hayay Haaruun al-Waathiq oo ahayd xilligii Cabbaasiyiinta ayaa waxaa dhacday habeenada ka mid ah isagoo hurda. Hal mar sekadiisa hurdadii ugu soo kacay isagoo argagaxsan. Wuxuu sheegay inuu ku riyooday iyada oo furmaysa xindaabkii Yaajuuj iyo Maajuuj. Wuxuu amray in la diyaariyo rag sahan taga oo ka war doona xaalka uu ku sugan yahay xindaabkaasi. Taliyihii ciidanka Cabbaasiyiinta oo la oran jiray Asnaash al-Turki ayaa u sheegay khaliifka inuu jiro nin tarjumaan ah oo ka shaqeeya dowladda, lana yidhaahdo Saraam al-Tarjumaan. Wuxuu sheegay inuu yaqaano 30 luuqadood, awoodna u leeyahay in maadaama dhullo badan la marayo oo dadka deegaankana ku hadlayaan luuqado kala duwan, inuu isaga hawshaasi qabto. Waxaa loogu yeeray ninkii, kadibna wuxuu amray inuu ka war doono xaaladda uu ku sugan yahay darbigii Yaajuuj iyo Maajuuj ay ku xiran yihiin. Wuxuu ku diray 50 nin oo ku wehelay safarka. Wuxuu siiyey 5,000 oo diinaar, sidoo kale wuxuu bixiyey diyadiisa oo gaaraysa 10,000 oo dirham haddii uu lacala waddada ku dhinto. Sidoo kale 50 nin oo ku diray ayuu mid kasta siiyey 1,000 dirham. Sidoo kale waxaa loo hormariyey mushaarkoodii ay qaadan lahayn muddo sanad ah. Kadibna waxaa bilowday safar dheer. Ninkii la oran jiray Saraam al-Tarjumaan iyo 50 nin ee ku wehelay safarka ayaa ka baxay magaalada Saamira oo ahayd caasimadda ku-meel gaarka ah ee Cabbaasiyiinta. Waxay u jihaysteen Armeniya oo xilligaasi ahayd qayb ka tirsan dowladda Cabbaasiyiinta. Waxay gaareen caasimadeedii oo ahayd magaalada Talbiis oo ah maanta caasimadda Georgia. Markii ay u tageen waaligii Armeniya u fadhiyey dowladdii muslimiinta una sheegay howlgalkii loo soo diray, wuxuu fariimo u qoray boqortooyada ka talinayay dhulalkii Qowqaas, koonfurta Ruushka iyo sidoo kale boqortooyada la oran jiray Qasar. Markii ay raggani soo gaareen boqortooyada Qasar ayay ku hakadeen habeenii maalin. Kadibna boqorkii Qasar ayaa ku diray 5 nin oo hogayaal ah oo waddada kala tusa. Waxay u jihaysteen dhanka bari waqooyiga badda Qowsiin. Waxay socdeen 16 maalmood ka hor intaysan soo gaarin dhul midabkiisa madow noqday, ur zaa'idna leh. Kadibna dhulkan ayay kasii socdeen 10 maalmood. Waxay mar kale soo gaareen deegaano dhan oo la qaribay lana baabi'iyey. Waxay sii wateen safarkoodii oo markani waxay sii socdeen 20 maalmood ilaa ugu dambeyn ay soo gaareen magaalo la yiraahdo Aykah. Magaaladan ayaa leh beero. Waxayna sheegeen in beerahan ay ahaayeen beerihii ay degi jireen Dulqarnayn iyo ciidamadiisu. Waxaynu jirtaa xindaabkii Yaajuuj iyo Maajuuj 3 maalmood sida ay sheegeen. Waxayna sheegeen in meeshan ay ku taalo buur dheer oo silsilad oo kale ah, taasoo u samaysan qaab wareeg ah. Wuxuu sheegay in darbiga uu sameeyay Dulqarnayn uu ku yaal 2 buurood dhexdooda afaafka buurtan, sidoo kalena ay ka dambeyso labadaasi buurood buurtii silsiladda ahayd ee aynu soo sheegnay inay sida goobaabinta u samaysan tahay. Isaga oo sifeynaya qaabku u yaalo ayuu sheegay in Dulqarnayn uu awood u yeeshay in labadani buurood uu ka dhex sameeyay derbi shub ah oo kale. Shubkan ayuu ka sameeyay dhagax ka samaysan bir iyo naxaas la isku dhalaaliyey. Kadibna waxa uu dusha ugu sareysa kaga dahaaray bir la dhalaaliyey si aysan u dhicin in si sahal lagu jibiyo. Kadibna shubkan ayaa noqday sida inuu ka samaysan yahay labadani buurood ee laga dhex sameeyey, oo isaga iyo buuraha lama kala saari karo amba lama kala jibin karo. Dhererkiisa ayuu ku sheegay inuu gaarayo 120 dhudhun oo noqonaysa 55 mitir. Wuxuu sheegay in xaydaabkan ay gaarka hayeen oo ay waardiyenayeen ragga u xilsaaray boqorkii ka talin jiray deegaankan. Raggan waardiyaha ayaa ayuu sheegay inay haystaan dubo weyn oo ay ku garaaci jireen maalintii 3 jeer shubkan birta ka samaysan si ay u dhageystaan inuu dhawaaq ka jiro darbigan gadaashiisa. 3 jeer ayay garaaci jireen. shubkan ayaa ahayd subaxii hore. Markii ay ku dhuftaan ayay maqli jireen dhawaaq sareeya oo ka sareeya shubka birta iyo nuxaasta ka samaysan gadaashiisa. Kadibna duhurkii ayay mar kale ku celin jireen. Waxayna mar kale maqli jireen dhawaaq iyo guux ka daran kii ay maqleen subaxii hore.
sidaas oo kale casirka ayay mar saddexaad ku dhufan jireen. yoolka laga lahaa in raggani waardiyaha ayaa ay dubahani weyn u sitaan ay ku dhuftaan gidaarkan ayaa ahayd inay hubsadaan in raggani ay dhaawac u geysan ama aysan jebin xayndaabka ama gidaarka shubka ah ee ay ku jiraan, si lacalla haddii ay jebiyaan ay u wargeliyaan boqorkii u talin jiray naftoodana ula baxsadaan. Salaam al-Tarjumaan ayaa sheegay in raggani waardiyaha hayay uu weydiiyey inay ku arkeen wax dilaac ah ama burbur ah gidaarkan. waxay ku jawaabeen maya, oo waxaa jira daloolkaas yar oo keliya, iyagoo farta ugu fiiqay jabniin aad u yar uu soo gaaray birta shubka ah ee uu xayndaabka ka samaysan yahay. kadib mindi yar uu sitay inta uu ku xoqay birtii shubka ka samaysnayd, kadibna xuqniinkii ka soo daatay ku qaatay maro yar uu sitay, wuxuuna sidaasi ku soo gebagabeeyey safarkiisii, dibna ugu noqday ciraaq si uu khaliifka ugu warceliyo una geeyey xuqniinkii birtii soo gaaray. safarkooda waxa uu qaatay 16 bilood oo sii socod ah iyo 12 bilood oo soo noqosho ah. dhulkan ay ku nool yihiin yaajuuj iyo maajuuj, sidoo kalena uu ka samaysan yahay gidaarkan, ayaa lagu sheegay inuu ku yaalo dalka Qarqistaan, gaar ahaan xuduudda u dhexaysa dalkan iyo dalka Usbakistan. qoraaga la yidhaahdo Cabdilaahi Sharbaji ayaa ku sheegay kitaab uu ciwaan ugu dhigay safarkii Dulqarnayn oo ku maray bariga gidaarka ay ku jiraan yaajuuj iyo maajuuj oo ku yaala deegaanka dhaca galbeedka Qarqistaan iyo bariga dalka Usbakistan, dhul beeraley ah oo dhacda xuduudda labadan dal. deegaankan ayaa waxaa shucuubta asalkooda Turkida yahay ee loo yaqaan Qirgiska, Turkumaanka iyo Iigoorka.